Qorrax madoobaadku wuxuu dhacaa markii dayaxu uu soo kala dhex galo dhulka iyo qorraxda dhexdooda, oo wuxuu isku gudbaa iftiinkii ka imaan jiray qorraxda. Markuu dayaxu soo kala dhex galo qorraxda iyo dhulka, waxaa dhaca mugdi sababtoo ah dayaxii ayaa wuxuu isku gudbay iftiinkii qorraxda. Qorrax madoobaadku waa wax dhaca dhowrkii sanaba mar oo la saadaalin karo. Qorrax madoobaadku sanadkiiba 2 mar ama 3 mar meelahaas ayuu dhacaa, mararka qaarkoodna 4 jeer, laakiin isku meel kama dhaco. Taas ayaa keenta wadamada badankood inay dhowr sano aysan arag qorrax madoobaadka. Qorrax madoobaadka soo socda waxa uu ka dhacayaa Mareykanka 21 August ama bisha 8 ee sanadkan 2017, halka qorrax madoobaadka ugu soo horeeyana Soomaaliya uu dhici doono 26 December ama bisha 12 ee sanadka 2019, markaas oo ay qorraxdu soo baxayso abaaraha 5:40 subaxnimo, iyadoo oo qaybteed madowdahay oo laga arki doono gobolada Soomaaliya oo dhan. Laakiin mararka qaarkood qorraxda oo dhan ayaa wada madoobaata. Arrinta noocan oo kale ah waxa ay ka dhici doontaa gobolka Bari qaybo ka mid ah oo ay Boosaaso ku jirto 10 sano kadib hadduu Ilaahay idmo bisha August 2027, sida ay odorosayaan khubarada ku takhasustay cilmi falaga. Markaas oo ay qorraxdu dhan ay wada madoobaanayso muddo 4 daqiiqo ah, qorrax madoobaadkuna uu soconayo muddo 2 saac iyo bar ah. Si maalin walba macluumaadkeenu ku soo gaaro, waxaad samaysaa subscribe. Haddaad rabtid inaad wax ka ogaatid macluumaad xiiso badan, waxaad gelisaa fiidiyowga.